ومظاهرات بلارن oo lagu soo horjeedo ninkii madowga ahaa ee lagu dilay Minneapolis. dadku aad bay u careysan yihiin. kuwa maanta soo baxay waa ardaydii jaamacadaha iyo dhalinyarada. waxay ku dhawaaqayaan ninka dhintay magaciisa. waxay socdaal dheer ka soo bilaabeen faras magaalaha Minneapolis. kumanaan qof ayaa lagu qiyaasi karaa. waxaan dhihi karaa banaabaxani maanta waa kii ugu badnaa. halkan waa magaalada Minneapolis. dadku aad bay u careysan yihiin. waa faras magaalihii Minneapolis. waa la isaga soo baxay xaafadihii lagu mudaharaadayay iyo saldhiggii booliska oo xalay la gubay. waxaad naga daawanaysaan telefishinka Universal. waxaa idiin soo tabaynaya anigoo ah Deeq Darajo. Facebookka TV-ga Universal ayaa si toos ah aad ugu daawanaysaan. dadka waxaad malaysaa inay coronavirus ay hilmaameen. dad badan ayaa xanaaqsan. xaaladda magaalada Minneapolis maanta ma fiicna. dadkan waxaa lagu qiyaasi karaa kumanaan qof oo dhalinyaro u badan. dadku waxay isdaba socdaan ilaa ishaado inta ay qabato. dhinacaas kalena waa kaasaa. dadku waa dad aad u badan. waa kaa qadan fiicanta walaal alxamdulilah. adiga wiilkaada mudaharaadaysaan maasha allah.
labadii waddo ayay qabsadeen. markii hore hal waddo ayaa lagu socday, laakiin hadda labada dhinac sababta banaanbaxa uu sii xogeysanayaa. waayahay raali lahada, waan ka daba tegi doonaa. daawadayaal, halkan waa magaalada Minneapolis, waa downtownkii, waa faras magaalihii Minneapolis ee gobolka Minnesota. dadku waxay ku dhawaaqayaan ninka dhintay magaciisa. dadkan socdaal dheer ayay soo galeen, inkastoo la keenay ciidamadii kaydka Mareykanka, haddana dadkii way ka soo wareegeen halkii lagu daadgureeyey ciidamadaasi, waxayna u beddeleen banaanbax socod ah. waxayna rabaan in magaalada oo dhan socod ay ku maraan. ilaa hadda ma jirto ciidamo boolis mise waxay ahaadaanba oo garab socda dadkan xanaaqsan oo ku dhawaaqaya ninka dhintay magaciisa. waxayna raadinayaan cadaalad. waxaa qof kasta la yidhi hal jilib dhigo. qof kasta waxaa laga codsaday inuu hal jilib dhigto. raalaha daawadayaal, kaamiradeeda kalaa la soo baxaya. Wherever you at, you can take a knee. We can sit. We can sit out here until they come move us. When they come to move us, we'll go to Stone Arch. We'll be there. It's totally legal at Stone Arch. Take a knee. Take a knee. jilib dhigaa la yidhi qof kasto. ummaddii jilibka ayaa wada dhigteen, waana la aamusan yahay. aniguna waan xushmaynayaa ummaddan halkaas ku timid, aniguna waan aamusayaa. caddaan madow midab kasta lahaw diinta rabta hayso. waxaa laga midaysan yahay sidii loo dhihi lahaa cadaalad ayaa loo baahan yahay. Prosecute the police! No justice, no peace! Prosecute the police! No justice,
halkan maanta waxaa lagu muujiyey midnimo madow iyo caddaan waxaad daawanaysaan telefishinka Universal oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo si toos ah u tabinaya mudaharaadka cadaaladda loogu raadinayo George oo ahaa nin madow ah oo lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa dilkaas ka qayb qaatay 4 boolis ah afartaasi booliska shaqada ayaa laga fariisiyay afartaba laakiin saacado ka hor ayaa waxaa soo baxay in mid ka mid ah la xiray laakiin dadku kuma qanacsana magaciisa ayaa la sheegayaa George Floyd dhalinyaro arday iskuulle ay u badan yihiin TV Universal ayaa daawanaysaan anigoo ah deeq darajo ayaa barnaamijkan mudaharaadka ah si toos u soo tabinaya daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa telefishinka Universal oo si toos u tabinaya mudaharaadkan oo ka socda magaalada Minneapolis beri oo sabti ah mudaharaadkan waxa uu ka dhici doonaa gobolada Mareykanka oo dhan dadka madow iyo dadka caddaanka waxay muujiyeen shucuurtooda ku aadan weli waxaa naga daawanaysaan telefishinka Universal anigoo deeq darajo ayaa barnaamijka idiin soo tabinaya waxaa la leeyahay daqiiqada ayaa la nasanayaa mar dhow shir jaraa'id ayaa madaxda u dhaqdhaqaaqada dadka madow ay qaban doonaan waa isku soo noqonaynaa waa deeq darajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo